السلام عليكم horta way idin mahad celinayna ilaahay baa mahad leh aad baa u mahadsantihiin dhammaan dhalinyaradan warbaahinta ah ee rugcadaayada ay ku jiraan oo cali baa kamid ah cali aadan daahir waan dhageysan jiray anigu waagan marka waan maleynayay iyo dhammaan tiimka kale waan idin mahad celinaya waxaan idin ka mahad celinaynaa inaan ugu soo dhaweyseen magaalada Ceerigaabo ee caasimadda gobolka Sanaag ragga qaar reer Ceerigaabada ugu jiray marka soo dhaweyntu way badnayd aniguna waxaan soo dhaweynayaa saaxiibkay Cabdikariin oo berbere ka yimi iyo meel dheer waxaan leenahay ku soo dhawo gobolka Sanaag magaalada Ceerigaabo idinkuna waa ku mahadsantihiin midinaas anagu iyo Maxamuud Jaamac sidoo sheegay waan soconaa hadba meel baan tagnaa oo dhulka saasaan u maraa waxaanu ka waranaa inta badan warbixinaha la xiriira arrimaha bulshada iyo nolosha dadka iyo taariikhda iyo xadaaradaha iyo ilbaxnimada warbixinaha aanu sameeyno boqolkiiba boqol waxay ka caagan yihiin siyaasadda kama warano inta badan ama warbixinaha aanu sameeynana magaalooyin kala duwan baan tagnay oo fara badan oo ku yaala Soomaaliya iyo meelo kale toba cid naga cabatay oo warbixin aanu sii deynay ka daba hadasho tiri war waxaanu qarinaynay baa la kashifay ma jirto sidaas darteed hadalkii saaxiibkay xidig baan haday daba joogaa wuxuu yiri marka Garowe iyo Boosaaso iyo tagtaan xitaa waxa sii deysaan baan idin dhiibaynaa waxa leenahay waxaanu sii deyno iyo waxaanu sii deynayno wax laga daba qaylan doono ma wax faafreeban oo tafatiraan annagana sumcadayada aan wax u dhimin dadkana aan maslaxadooda iyo midnimadooda iyo wadajirkooda waxyeelayn waxaanu insha Allah tagi doonaa hadii Allah wadalo ogolaado dhulkii aan tiraahdeen way idin geynaynaa kuwaas aan ka warrami doonaa waxaanu soo gudbin doonaa magaalada Ceerigaabo waxa ku kaydsan ninka la yiraahdo Ilsar baa hadaaya taabtay wariyuhu magaalada uu joogo inta badan warbixintu ku muuqamay sababtoo nolosha caadiga ahayd bay kula noqonaysaa nin la yiraahdo welcome aan saaxiibnahay wuxuu yiri warka subaxii baa lagu turturoodaa buu laakiin ku muuqamayo nin cusub baa maanta kale to imanaya markaas uu arkaya warbixintii marka aanu magaalooyinkan joogi jiray oo aan ku dhashay maanta dhan hadaan joogo waxa dhici karta inaan warbixin ii muuqan laakiin markii wariye magaalo kale ka yimaado 10 warbixinood u muuqdaan taasi waxa weeye markaad socotid oo meel tagtid waxyaalahaas kugu cusub ayaa sheekooyinku ku jiraan hadii Allah wadalo ogolaado magaalada waan joogi doonaa wasaan idin sheegnay waan ka shaqeyn doonaa sidaad noo soo dhaweyseen ayaana waxayna sii gelinaysaa lixjeclo dheeriya iyo kalgacayl oo inaanu sii joogno nagu sii khasbaysa haday tahay maamulka dawladda oo si mug iyo miisaan la noo soo dhaweeyay oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada Maayarka isuduwayaashii saraakiishii amniga iyo gudoomiye gobolka gudoomiye ku-xigeenka isagana aan saragnay si gobonimo leh baa naloo soo dhaweeyay oo magaalada naloo ku soo dhaweeyay waana ku mahadsantii waxaan ku darayaa Ceerigaabo meelay anigu aan wax ka faa'iiday bay kamid tahay waxaan imi Ceerigaabo 2013 ragga qaar bay weydiin waxay lahaayeen tababarkii ka waran marka 2000 waagan warbaahinta wariye ma ahayn laakiin waxay ahayd waagan warbaahinta jeclaa marka warbaahinta jeceshahay inaad microphone ka hadashid aad bay ku xiiso gelinaysaa waxay ahayd Boosaasan iskoolka dhiganayay Buraan baan soo xagaa baxay MCH-ka marka talaalka iyo wacyigelinta iyo arrimahaas microphone lagu wareejiyaa magaalada bari talaalkii baa jira caruurta talaala waa kaas microphone-kaas aan qaadan jiray dadna hadana microphone-kii iska qaato oo teamkii iska caawiyo oo aniguna aan bajeclahay inaan hadlo oo luqyada magaalada kala soo wareego bari talaal baa jira oo waa kaas oo ogeysiintaas baan booso ku noqday dadna waxa la yiri Buraan laba qof soo dirto oo loo tababaro hay'ad hafayo kala yiraahdo bixinaysay tababarka waxa lagu bixinayay bardaham yaal dhamsa darayg bardaha lagu bixinay marka waxa la yiri doctorkii Allah u naxariistay uu dhintay ninkii markaa haystay MCH-ka Buraan maxad musashira la oran jiray wuxuu yiri wargabankii xagaagii dhamaan microphone-ka sitay wacyigeliyad baa la yiraahdo haleeno tababaro gabankii aanu diro aniga nin la yiraahdo Axmed Jaan Ciise oo adeer jaamacadda bariga Afrika kamid ah ragga ka shaqeeyo muslimiinta ka ayaana la soo diray waxa la yiri tababarkii taga waxaan xasuustaa hadallo badan baa meesha ka dhacay laakiin waxaan xasuustaa maalin baan halka mareeyo qolaa waxaan ugu dhahay mawriyaal baatiin anigu marka aad wali waa jeclahay kelmadii waaga sababta waxaan jeclaa inaan wariyo noqdo marka meelihii aan wax ku baranay wacyigeliye caafimaad baa la tababaray marka haaf dhakhtar baan ahay waa dareemi kareysaan marka magaalada meelaha wax ka faa'iidnay bay kamid tahay annagana inaanu xirfadayada uga faa'iideyno oo aanu dadka waa la yaqaan Ceerigaabo sheekooyinka quruxda badan oo qarsoon iyo taariikhaha
iyo dhulka bilicda leh inaan soo bandhigno ahmiyadaan u nimi oo u joogayno waa midaas waan idinka mahad celinaynaa inaan soo dhaweysaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin